السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة الكمر كلا سود وواضح أدي هذا ومهتمتين ما أنت واسبتي أبريل لبعتنك بيش شناد أي ماي سنة كلا بدأ كون يشان يلا بعتنك مقال كانوا حربا إن ندي كل وذاقه كيسكي فيدنا ورفيجر العكتي لبدا بقول يكونتون كمليان هيد لقولهم صداي قبل كمينيسوتا dadka ugu badan ee ku eedeysan ay Soomaalida ay ahaayeen ayaa haweeney Soomaali ah la xukumay toddobaadkan kadib markii ay dambigeeda qiratay waxaana lagu amray in ay lacag dib ugu soo celiso dawladda haddaba lacagtaana imisa ayaa lagu xukumay lacagta laga rabana imisa ayay la eg tahay sidoo kalena ilaa iyo hadda dadka la xukumay kiiskan kuwa dacwad sugayaasha kuwa sidoo kale dambigooda qirtay iyo kuwa dambiga lagu helay oo aan wali la xukumin ilaa imisa ayay dhan yihiin ayaan rabaa inaan muuqaalkan aan idinku la wadaago balse marka hore soo dhabada 150 milyan ee loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo xilligii coronavirus-ka uu jiray oo caruurtu iskuulada ay ka joogeen oo guryaha ay wax ku baranayeen dadka ugu badan ee ku lugta leh kiiskaasi musuqmaasuqa oo kii ugu weynaa oo wadanka Mareykanka ka dhacay la leeyahayna waxa ugu badan Soomaali haddaba kiiskan dad ayaa maxkamadda loo soo taagay oo qaarkood dambi lagu helay kuwana loo xukumay laakiin inta badan dadku dambigooda waa ay qirteen marka qofku haddii uu dambigiisa qirto xukunka ayaa laga qafiifinaya haddii uu markhaati fur sameeyo dawladda caawiyo ama dacwadoogayaasha iyaduna waa iba ka sii wanaagsantahay laakiin qofku haddii uusan markhaati fur sameynin oo uu dambigiisa qirto iyo haddii uu markhaati fur sameeyo labadaba xukunkiisa waa laga qafiifinaya haddaba toddobaadkan waxaa jirtay in haweeney Soomaali ah oo magaceeda la yiraahdo Sahran Nuur oo 63 jir ah in garsoore Nancy Brassel ay ku xukuntay 4 sano oo xabsi ah iyo in ay bixiso lacag gaaraysa ilaa iyo 5 milyan oo dollar ay dib dawladda ugu soo celiso haddaba haweeneydan sanadkii 2023 ayaa Sahran Nuur ay dambigeeda qiratay oo ah isdabamarin lacageed iyo in lacag si qalad ah meel kala duwan ay ugu dirtay marka xukunkeeda waxa uu noqday in 4 sano oo xabsi ah ay gasho isla markaana lacag 5 milyan ah ay dawladda dib ugu soo celiso haddaba Sahran Nuur oo wax kala hayd company la yiraahdo S&S Catering oo ku yaala Lake Street Minneapolis waxa ay maxkamadda ka hor qiratay in 1.2 milyan oo cunto ah oo ay sheeganayeen in caruur ay siinayeen intii u dhaxaysay bishii 9aad ee September sanadkii 2020 ilaa iyo bishii 4aad ee sanadkii 2021 in aysan wax yar oo kamid ah tiradaasi ay sheegayeen in ay bixiyeen oo lacagtaas ama cuntadaasi aysan caruur wada siinin marka dacwadoogayaashu waxa ay sheegeen in shirkadan ama company-gan ay wada lahaayeen laba haween ah oo la kala yiraahdo Sahran Nuur iyo sidoo kalena Qamar Xasan oo iyaduna marqaati fur ka sameysay kiiska ugu dambeeyay oo haweeneydii madaxda ka ahayd Fidina Warfujer Amy Baki iyo Salim Saciid oo isaguna milkiilayaasha maqaayada Safari Restaurant iskala kamid ah ayaa Qamar marqaati fur dadkii sameeyay ay ku jirtay marka labaduba waxay isla lahaayeen company-gan la yiraahdo S&S Catering marka lacag 10 milyan waxa ay ka heleen meel kale oo cunto bixinaysay oo iyagu ay raashinka u qaybinayeen ay sheeganayeen in goobahaasi cuntada laga bixinayeen inaga ayaa raashinka siinaynay lacag 10 milyan oo dollar ay ka heleen shirkadahaasi kale ama goobahaasi kale ee cuntada lagu bixinay Fidina Warfujerna waxay ka heleen lacag 16 milyan oo dollar marka la isku daro marka 26 milyan oo dollar ay heleen labadaasi haweeney ee Qamar iyo Sahro oo shirkadaasi S&S Catering iska lahaa marka sidaas darteed ayaa waxa ay lacagtaasi ku qaateen iyagoo aan wax cunto sida ay sheeganayeen aan siinin caruurtii loogu talagalay marka waxa jirtay in Qamar Xasan iyadoo 20kii bishii February ee labaad ee sanadkan markii maxkamadda ay saarnaayeen Amy Baki haweeneyda madaxda ka ahayd ururka Fidina Warfujer oo lacagahan dadka Soomaalida u qaybiyay iyo Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayada Safari Restaurant kamid ah ayaa marqaati fur ay sameysay Qamar Xasan oo company-gan S&S Catering la yiraahdo ay Sahran Nuur ay isla lahaayeen marka Qamar waxyaabihii la weydiiyay markii marqaati furka ay sameeynaysay waxa kamid ahaa tiradan aad soo bandhigteen oo ah caruurtan inta laag in cuntadan aad siinayseen wax sax ah miya numberkan ma saxa maya ay ku jawaabtay waxa la weydiiyay waayahay maxaad u saxiixday waraaqahan oo inay sax yihiin ahaan maxaad ugu saxiixday markaas waxay tiri xilligaasi si toos ah ma aanan u fikiraynin waxay sidoo kale tiri waxaan daba soconay lacagta oo kaliya lacagta ayaan ugaarsanayno inagu lacagta ayaan u baahnayn marka tirada
fikradan iyo waxyaabahan aan qorayno micno ma aysan noo samaynin. iyada sidoo kale qamar waa xukun suge oo xukunkeeda ayay sugaysaa. marka waxaa hadda Sahran Nuur oo 4 sano lagu xukumay islamarkaana lacag $5 milyan inay bixiso lagu amray ay noqonaysaa qofkii saddexaad oo Soomaali ah oo kiiskan Feeding Our Future loo xukumo. iyada maxkamad lama saarin oo dambigeeda ay qiratay, laakiin hore waxa uu jiray Maxamed Ismaaciil oo kamid ahaa milkiilayaasha Empire Casino and Market oo bishii October 15 sanadkii 2024 12 sano oo xabsi ah lagu xukumay. waxaa sidoo kale xigay Mukhtaar Shariif oo isagana 210 bilood lagu xukumay bishii January 24 sanadkan 2025 ku dhawaad waa 17 sano iyo bar oo xabsi ah. marka waa xukunkii ugu dheeraa oo ilaa ay hadda lagu rido qof isagu kiiskan Feeding Our Future maxkamad loo soo taagay. marka ilaa hadda waxa la leeyahay kiiskan oo 70 qof lagu soo eedeeyay lacagtan 250 milyan ah inay lunsadeen 38 kamid ah ayaa dambigooda qirtay. 7 kamid ah maxkamad ayaa la saaray oo dambi ayaa lagu helay, 2 qofna waa tii dambi lagu waayay sidaan ognahay. marka 18 eedeysane ayaa ilaa hadda waxay yihiin maxkamad sugayaal. waxaa sidoo kale jirta in Amy Bark aan ognahay oo iyadoo Feeding Our Future madax ka ahayd in 19 bishii Maarch ee saddexaad ee sanadkan lagu helay dhammaanba 7 dambi ee lagu soo eedeeyay, iyo Salim Saciid oo isaguna maxkamadda lala saaray oo milkiilayaasha maqaayadda Safari kamid ahaa oo 21 dambi ee lagu soo eedeeyay isagana lagu helay. marka hadda guud ahaan waxa ayna kiiskan jirta in 4 qof oo Soomaali ah oo dambi lagu helay ay hadda xukun sugayayihiin oo wali aan la xukumin. waxaa sidoo kale jira dad badan oo Soomaali ah oo iyaguna kiiskan ku eedeysnaa oo qaarkood dambigooda qirtay, kuwana marqaati fur sameeyay oo iyaguna xukun sugayaal ah oo sugayo in xukunka laga qafiifiyo. marka waan arki doonaa halka ay arintan ku dhamaato, laakiin kiiskan waxa ay u muuqdaa in hadda inta badan dadkii ay dambigooda qirteen maadaama 38 kamid ah ay dambigooda qirteen, 18 oo kaliya ay hadda waxay yihiin dad maxkamad sugaya oo wali aan dambigooda qiran. marka waxyaabaha kale ee ka soo kordha haddii alla idmo waa idila soo socodsiin doonaa. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.